haddaad isha ku soo dhawayso wuu qarinaya fartaydan ishayda oo dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhaweynay dabeetana noloshaba wuu inaga qariyey ma arki karaysid ilaa mercediska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid walidalik buu taarikhyahankii Greek ahaa Plutarch wuxuu leeyahay qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد in history تاريخ بني آدم كبولي وحال هلاي مقالوين قديمة وأنقل عضلهين وحال هلاي بولي مقالوين واوين وقديمة وأن قصور إيالهين دار دار waxaa la helay buu leeyahay magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu leeyahay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn taariikh al-insaaniya waxa archaeology qoday waxa wax la baaray lama haya bay leeyihiin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn ولذلك بلوتارك marka laba wuxuu leeyahay in madina بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله مقالين الدستان دول بلهين يعني وحيرة مستحيلة لأن دول بكتيرين نقولها مقالة نسوى مستحيل تاسبا كفضت بولي دولة بلا إله هين تصميسو طبعا وحبرهم السنين يعني إنسان قوى بفطرته بو عابدي هي لكن وحي سويدين تله يد عابده ولا هذا عابده النبي عليه الصلاة والسلام حليه تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الخطيفة الضون وحا هوغي كالدرهم يدينار الضون إن العق أرورسة هدا دون نولاتي يدد عابديسة جسع مرقاقة حوقاقة عقلقاقة تمرت هذا وحا قولنا وحا تسوو قيسي أكاونت كاقو ينو بطو أكاونت كان واحد كاستعمال سوا وحيا لكن إن الباديصو dadka bar baa u adoona guriga asaadka ayaa lownu bedelo maanta oo dhan buu soo shaqeynaya bilaal la wadaya waxa la oranayaa fadhiga la bedelaya waa la wadaya qolka seexashada la bedelay waxaad adoon u tahay alhabtan inaad bedesho modelskeeda that's the purpose of your life noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay cimrigaagii waxan baad ku bixisay Zandani baa wuxuu isugu yeeray niman khubaro khatiira markaasuu cilmi tashriix uu ka waraystay bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa muxuu taraa muxuu jirka ugu jiraa waa la sharxay beerku muxuu taraa kaliyu muxuu taraa kani muxuu taraa waa la sharxay kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay marka la isku wada daray uu qof noqdo ka warrama maxaa loogu talagalay isaga and that's philosophy kani maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa haddii acdaada qofka bini aadamka mid walba waxa loogu talagalay la gartay waxay marka la isku daro haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa steerinku waxan buu sameeyaa daaqaddu waxan bay samaysaa marka la isku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano baartiskiisa may ahayn insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay waayo hadafkii baa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya ka kubadda ciyaaraya labada birood ee meesha laga taagay markay caaga yari uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya ayuu u guulaystay hadafkii buu gaadhay wixii bahashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyahay waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa soko oo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya
hadafkaaga weyni goolkaaga weyni yoolkaaga weyni uu kuu cad yahay aad ku socoto waxaanoo dhammin ay u adeegayaan yoolka weyn falaasafada iyo dunida ugu waaweyneed nin ka mid ah falsafo faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la yidhaha falsafadan la yidhaha qolada rumaysanayd ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay boolisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinni wixii u baahnayd in boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa boliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynahay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah yani iminka hogaaminaya dastuurka yurub ay qoranayso madaxda waa giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransiis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahay noloshan aan joogo hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahay wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeeduba waa cabas buu leeyahay waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilay kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama gala bay leeyihiin aada og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la ydhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqata in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo therefore wuxuu maan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo that's why maanta yurub qaanuunyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha waa maxay macnuhu waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmay waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay markaa noloshan adduun iyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahy